Assalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawada meel walba oo aad joogtid ku soo dhawow qaybtii xigtaa ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan oo markaani u muuqanaysa in qaybihii rasmiga ahaa la isla soo gaaray. Sheekadan anigoo Marcadde ayaa kula socodsiinaya barta YouTube-ka ee Marcadda Show ayaad ka daawanaysaa. Qaybihii hore ee sheekada oo xasaasi ahaa waxay qaybtan ay ku bilaabanaysaa. Yaara ayaa markii ay tiri maxaad doonaysaa in aad ogaato ayuu dilaagii markaasi kadib waxa uu soo qoray hadal ahaa sidee ayaad ku ogaatay inaan aniga muuqaalka aan beddesho. Daariq ayaa markaasi inta indhihii uu soo taagay waxa uu yidhi muuqaal beddelasho, kadibna wuxuu isweydiiyey waxa uu kala jeeda arrintaasi. Fariid ayaana markaasi Daariq u sheegay in weji beddelashada ay u taagan tahay qof awood u leh inuu si dabiici ah muuqaalkiisa u beddesho isagoo iska dhigi karaya hadba qaabka uu doono. Balse Daariq oo hadalka Fariid kaftan u arkay ayaa wuxuu ugu baaqay in waqtigaani uusan sheeko iyo kaftan uusan bilaabin. Yaara ayaa arrintaasi mar kale soo hadashay oo waxay tiri waxay ila tahay in Fariid hadalkiisa uu sax u yahay. Daariq ayaa kadibna hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi aniga waxaan aqaanaa macna ahaan waxa uu u taagan yahay muuqaal beddelashada, balse waxaan hubaa in arrin kale uu kala jeedo dilaaga hadalkan, waayo dadka la sheego in ay muuqaal ay beddelan karaan waa sheeko baraley khuraafaadka ka midka ah, balse waxay ila tahay inuu ula jeedo muuqaalkiisa hab gaar ah inuu u beddelo mar walba uu doonayo qof cusub inuu dilo, waxaana muuqaalkaasi ah in uu maaskara dadka uu isu ekeysiiyo uu soo xirto. Fariid ayaa markii hadalkaasi Daariq uu ka maqlay kadib hadalkii qaatay oo waxa uu yidhi maya, dadka muuqaalka beddesha ma aha sheekadooda mid khuraafaad ah ee waa xaqiiqo anigaana horay u arkay. Daariq ayaa hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi hore ayaan kuugu sheegay ee iga aamus. Fariid ayaa mar kale hadalkii ku soo laabtay oo waxa uu yidhi anigana waan kuu sheegay inaan horay aan u arkay, waxayna dadkaasi awoodaan inay muuqaalkooda xitaa iska dhigaan adiga oo meesha taagan, markay iska kaa dhigaanna dadka kuwa kuugu agdhow xitaa kaama sooci karaan isaga, waxayna dadkaasi awood u leeyihiin in wax walba ay koobi gareeyaan ama ay isu ekeysiyaan, xitaa faraha suulkaaga ayay isaga ekeysin karaan, soo ma ogid. Daariq markii hadalkaasi Fariid uu ka maqlay kadib ayaa wuxuu yidhi anigana waxaan ku leeyahay adiga axmaq ayaa tahay ee khuraafaadka aad aaminsan tahay, aniga ha iila imaanin ee iga hortag afkaagana xiro. Fariid ayaa intaasi kadib waxa uu maagay in uu hadal kale uu ku yiraahdo, balse Yaara ayaa sidoo kale soo kala dhex gashay hadalkii oo waxay tiri Doodan naga soo xira aan ka wada hadalno ninkan diiradana aan saarno, waayo waxaan ku wareersanahay wixii aan qori lahaa uguna jawaabi lahaa. Yaara ayaa markaasi in cabaara intay fikirtay kadib dilaagii waxay u qortay Qofka saaxirka ah marnaba sirtiisa ma kashifo. durba dilaagii oo u soo jawaabay ayaa wuxuu hadalkiisi ugu soo qoray sidan u malayn maayo adiga in aad tahay saaxir, balse dhib ma lahan ee ii sheeg maxaa kaloo aad og tahay oo aad iga og tahay aniga. Yaara ayaa markaasi ku jawaabtay Aniga waxyaabo badan ayaan ka ogahay adiga. Waxaan ogahay adiga inaad u malayso marnaba inaadan dhib aadan u geysan dadka aad dilayso, balse aad u malayso in aad u qidmaynayso marka aad u ogolaato in si nabadgelyo ah inay ku baxaan. dilaagii ayaa mar kale soo laabtay oo wuxuu yidhi waxaad u muuqataa adiga inaad wax badan aad iga og tahay. Yaara waxay tiri Shaqadeyda ayaa midaasi ah inaan wax qarsoon aan ogaado. dilaagii ayaa ku soo laabtay hadalka oo wuxuu yidhi hagaag isku kay sheeg hadda adiga kumaa tahay. Yaara ayaa markaasi waxay ku tiri hadalkii Magacayga waa Yaara Mustafa, waxayna ila tahay hore inaad ii maqashay. intaa markii ay isweydaarsadeen kadib ayaa Fariid uu soo booday isaga oo leh balaayaha kugu dhacday sidee ugu sheegaysaa qofka aad tahay, waayo wuu ogaan doonaa dilaagan inaad adiga aad tahay gabadhii soo xirtay dilaaga reer aakhiraadka ah, haddii taasi ay dhacdana u malayn maayo inuu kula sii hadli doono. Yaara uma aysan jawaabin Fariid, balse taasi beddelkeeda waxay ku mashquulsaneed taleefankeedii waxaana ay sugaysay jawaabta dilaaga. 2 daqiiqo markay ka soo wareegatay ayuusan dilaagii weli uusan wax jawaaba soo qorin, waxaanay niyadda iska lahayd Dhaqso soo jawaab. Daariq ayaa markaasi kadib inta uu soo hadlay waxa uu yidhi waa markii ugu horreysay ee Fariid hadalkiisa aan ku waafaqo, waxayna ila tahay inuu ku saxan yahay midaasi ma ahayn inaad dilaaga magacaada aad u sheegto. Fariid ayaa kadib hadalkii ku soo laabtay oo waxa uu yidhi ninkii waad cabsi gelisay, haataana si fudud ayaan ku weynay iyo habdhaqankaada degdega ah, halkii aad magacaada u sheegi lahayd waxaad awooday inaad magacaanan jirin aad u sheegto, kadibna aad dilaaga aad kulan aad ka dalbatid sidaasna gacantaan ugu soo dhigno, balse haatan fursaddii waad iska dayacday. Daariq ayaa markaasi kadib hadalkii ku soo laabtay oo waxa uu yidhi 1 daqiiqo baan booday Fariidow inaad caqli leedahay, balse doqonnimadaada ayaad ka sii markhaati kacday.
ma waxaad moodda sheeke inay sidaasi u fududdahay? ma waxay kula tahay nin wax kastaa ee ka gaashaantay si aan loo qabanin in uu soo baxayo islamarkaana u la kulmayo qof uusan aqoonin oo keliya internetka uu ka bartay? ma nin nooc kasta oo kaarta lagu qaban lahaa ka gaashaanta ayay kula tahay qaabkaasi fudud in lagu soo qabanayo? alla maxaad caqli xumo adiga ay kugu dhammaatay. fariid markii hadalkaasi uu ka dhageystay daariq wuxuu u muuqday in uu aad uga niyajabay hadalkiisa, waxaana mar kale hadalkii qaatay fariid oo waxa uu yidhi, haddii sidaas ay tahay maxaad yaaro ugu canaanatay in magaceeda dilaaga ay u sheegto oo aad adiga hadalka aad igu raacday? daariq ayaa markaasi kor iyo hoos inta uu fiiriyey fariid wuxuu yidhi, waar iga aamus, awl inuusan hadalkaada wax faa'iido lahayn waan ogaaye. intaasi kadib waxaa soo jawaabay dilaagii isaga oo yaara u soo qoray, yaara soo adiga ma ahan qofkii gacanta kusoo dhigay dilaagii reer aakhiraadka ahaa. intaasi markii uu soo qoray yaara oo aan u jawaabin ayuu haddana waxa uu soo raaciyey, haatanna aniga ayaad i eryanaysaa soo ma ahan? soo inaad iqabato ayaad doonaysaa soo ma ahan? kadibna aad soo ceshato sharaftii kaa dhuntay. yaara ayaa markaasi kadib dhankii daariq inta ay eegtay kadib dilaagii waxay u qortay, adiga agteyda waxaad ka tahay jawharad taaj ah oo aanan la heli karin, taasoo ii ballanqaadaysa sharafteyda inta anoo lahay in ay joogto noqonayso, dib dambana aan u waayin. dilaagii ayaa markaasi kadib waxa uu soo qoray, waaw xamaasadaada waan ka helay, balse aan su-aal ku weydiiye, xaggee ku dhuumatay sanadihii ugu dambeeyey? yaara ayaa markaasi ku jawaabtay, waan joogay balse ma aanan arkin kiis i xamaasad geliya fadhigana iga soo kiciya. dilaagii ayaa markaasi kadib waxa uu soo qoray su-aal ahayd, alla maxay sharaf weyn ii tahay inaad aniga dartee aad usoo rogaal celisay, balse waxaa isii murugelinaysa inaan kuu sheego adiga oo khasaartay inaad dib aad u laaban doontid soo maahan? markii dilaaga sidaasi uu soo qoray kadib waxaa hadalkii qaadatay yaara oo waxay tidhi, ma kuu sheegaa qof sidaada oo kale u fakaray, kalsooni caynkan oo kalena isku qabay, oo aaminsanaa in weligees aan la qabanaynin, waa dilaaga reer aakhiraadka, balse gacanta ayaan kusoo dhigay. dilaagii ayaa markaasi kadib waxa uu soo qoray, 10 ruux baa adiga hortaada isku dayay inay aniga gacanta igu soo dhigaan, waanay ku fashilmeen midaas, adigana midaasi oo kalena waxba kama duwanid. yaara ayaa markaasi hadalkii kusoo laabatay oo waxay tidhi, waad ogtahay adiga inaan aniga dadkaasi oo kale aanan ahayn oo aan ka duwanahay, bal u fiirso, dhowaan ayaan kiiskaaga gacanta ku dhigay, baaris ku bilaabay, waxaana durba aan helay macluumaad badan. intii ay heleen dadkaasi sanooyin badan oo baarista ay kugu wadeen ka badan ayaan aniga helay. iskaba daa midaasi, haatan waxaa noqday qofkii ugu horreeyay ee og in dilaaga aad tahay, toos ayaan kula hadlayaa. dilaagii markii hadalkaasi u soo qortay yaara kadib dhankiisii ayaa wuxuu ku soo jawaabay, waa wax aad u wanaagsan inaad heshid qof loolan adag ku geliya, sidoo kalena aad u caqli badan. aniga waxaan dareemay sheekada inay noqotay mid lagu caajiso, waayo tabar uma aanan haynin maalin walba inaan la macaamilo doqomadaasi ismooday inay aniga gacanta igu soo dhigi karaan, balse haatan qof caqli leh miisaanna leh ayaa i hor jooga, xamaasadiina waa i iisoo noqotay. yaara ayaa markaasi kadib waxay ku jawaabtay, maya, dadkaasi sidaad moodid uma doqonsanaa, balse adiga ayay tallaabo kaa horeeyaan, taas oo kaa dhigaysa mid mar walba iyaga ka soocan. adiga waxaad tahay qof mar walba muuqaalka bedashaa. hadda bal iiga waran dareenka ah mar walba inaad muuqaalkaada aad bedelato. dilaagii wuxuu yidhi, waa dareen aanan la sifayn karin. waxaad awoodaa inaad muuqaalkaaga aad bedelato, sida inaad ilbiriqsi gudihiisa usoo noqoto qof alla qofkii aad doonto. waxaan awoodaa adiga booskaada inaan subaxii iska kaa dhigo, sidoo kalena aan qoyskaada dhexdiisa ku noolaado iyaga oo aanan i dareemin. dilaagii markii intaasi uu soo qoray fariid ayaa markaasi inta uu soo booday waxa uu yidhi, ma aragtaa hore ayaan kuugu sheegay aniga inay jiraan dad awooda muuqaalkooda inay badashaan, ninkaanina dadkaasi ayuu la mid yahay. daariq markii hadalka fariid uu soo jeediyaba isaga ayaa ah ruuxa jawaaba oo markaani waxa uu yidhi, macquul ma ahan, sidoo kalena sheekada marba marka kasii dambaysa sidaan mooday way kasii xumaanaysaa, mar walba oo tallaabo aan qaadana dhiiqa ayaan dhexda ka galaynaa, marka hadda sidee ayaan gacanta ugu soo dhigi karnaa nin muuqaalka bedelanaya mar walba? yaara ayaa markaasi kadib dilaagii waxay u qortay, u malayn maayo adiga inaad doonaysid nolosha aan ku noolahay inaad ku noolaato. qoraalkaasi markii ay qortay kadib ayaa haddana waxay usii raacisay, haatanna ii sheeg xaalka amiiradda. dilaagii ayaa markaasi wuxuu u soo qoray, hee muxuu yahay xaalkaad ka hadlaysid? yaara ayaa kadib waxay tidhi, adiga qof caqli badan ayaa tahay, anigana caqli badnaantaada kuma ihaanaysanayo.
hadallo isyeel ah oo aan ka quudaraynayo inaad qalad yar oo aan kugu soo qabta aad ku gasho. Sidaasi aaweed waxaan midaasi ka doorbidayaa inaan toos kuu weydiiyo su-aasha aan doonayo inaan ogaado. dilaagii ayaa markaasi waxa uu yidhi, adiga xitaa qof caqli badan baa tahay, sidaasi awgeed ayaan xaalkeeda kuugu sheegayaa. amiiradu way nabad qabtaa, wax dhib ahna ilaa iyo haatan kuma uusan dhicin. yaara ayaa markaasi kadib waxay tiri, Haydhihin waxaan doonayaa inaan amiirada dhibaato u geysto, waayo adiga waad ka caqli badan tahay qof amiirada dhibaato u geysanayo. dilaagii ayaa kadib waxa uu yidhi, adigana waad og tahay aniga in aan qof dhib aanan u geysan, balse kaba soo qaad waxaan doonayaa inaan dhib aan u geysto iyada, maxaa dhacaya markaas? yaara oo markaasi yaaban ayaa waxay tiri, Waa macquula inaad hadalkaani kaftan aad u tiri, balse waxaad moog tahay haddii amiirada aad dhibaato aad u geysato in isla waqtigaasi wixii ka dambeeya aad noqonayso dilaa dambiile caalami ah. Sidaasi awgeedna dowlad kasta adiga ayay ku ciirsan doontaa, waxaadna noqon doontaa cadowga shacabka, adiga oo dhagax walba oo aad ku dhuumatid kaa dhex raadin doona dadka si gacanta ay kugu soo dhigaan. Ugu dambeyntiina way ku heli doonaan, xitaa haddii aad caloosha nibiriga aad ku dhuumatid. dilaagii ayaa markaasi kadib waxa uu yidhi inta uu yara qoslay, waxa aad sheegtay iyo ka badanba haatan ayay sameeyaan, ee bal ii sheeg ilaa haatan xaggee bay gaareen? ma jiraan qof ay gacanta igu soo dhigay? aan runta kuu xaqiijiyo, dadkan wax walba oo ay sameeyaan amiiradda iyo wixii u qoran kama celin karaan, wayna wajahaysaa. intaasi markii uu soo qoray ayaa yaara inta ay yara aamustay waxa uu dilaagii mar kale usoo raaciyay fariin kale oo dheer oo waxa uu ku yidhi, adiga waxaa tahay qof caqli badan, sheekadana caajiska waad ka qaaday, xiisana waad u yeeshay, sidaasi awgeed waxaan adiga dartaa aan u dheerayn doonaa muddada ay noolaanaysa amiiradda, anigoo kuugu daraayo muddo 3 maalmood ah, sidaasi awgeed inta aad awoodid iga soo gaar. mar kale yaara waa ay aamustay markii dilaaga dhambaalkaasi uu usoo qoray. waxaa kaloo usii raaciyey, haatan waan kaasii tegayaa, waxaana la gaaray xilligii aan quudan lahaa, cuntona la siin lahaa amiiradda, balse mar kale ayaan sheekaysan doonaa. intaasi markii uu soo qoray ayuu qadkii chat roomka ahaa gebi ahaanba uu jira, meeshiina uu ka baxay. daariq oo aad u caraysan ayaa inta gacantii uu duubtay feer xooggana darbigii ku dhuftay, kadibna waxa uu yidhi, lacnad ha ku dhacda eyga, waxa igu ballan ah maalintan gacanta kusoo dhigo in aan wejiga aan ka bedelo sidaan garaacis aan ugu wada isaga. fariid ayaa markaasi hadalkii soo kala dhex galay oo waxauu yidhi, haatan ma dhihi karnaa qorshihii waa fashilmay. yaara ayaa markaasi kadib waxay weydiisay sababta oo sidaasi u yidhi. fariid ayaana wuxuu ku jawaabay, tani waxay ahayd fursad naadir ay tahay inay dhacdo oo aad wada sheekaysi toosa la gasha dilaaga, balse adiga sidii la rabay ugama aadan faa'iidaysan, wax macluumaad ah oo ilaa haatan aad ka haysatidna ma jiraan. yaara ayaa markii fariid sidaasi uu ku yidhi kadib waxay ku jawaabtay, Maxay tahay macluumaadka muhiimka ah ee aad filaysay in aan heli doono? Ma magaciisa, ma ciwaankiisa, ma lambarkiisa, mise halka uu ku shaqeeyo ama uu joogo isaga? Ma waxay kula tahay ninkani intaasi oo sano gacanta lagu dhigi waaye macluumaad sidaas u halis badan oo noloshiisa halis gelinayo inuu halkaani uu keeni doono ama uu noo sheegi doono? fariid ayaa kadib wuxuu ku jawaabay, maya sidaasi kalama jeedo, balse ma aanan helin hal macluumaad oo xitaa nagu hogaamin kara qofka uu yahay dilaagan. laakiin fariid, ma waxaad filaysay kulanka koowaad iyo wada sheekaysiga koowaad inaan xogtaasi aan ku helayno? daariq ayaa kadib hadalkii soo kala dhex galay oo waxauu yidhi, fariid, adiga aragtidaada waa daciif, sidoo kalena ma ahan mid qoto dheer, balse aniga ayaa far waaweyn wax kugu dhigaayo ee i dhegeyso. wada sheekaysiga yaara iyo dilaaga wuxuu ahaa mid guul weyn kusoo dhammaaday, waayo haatan isaga wuxuu og yahay in garoonka laacib cusub uu soo galay, kaasoo doonaya inuu isaga uu ugaarsado. sidoo kalena laacibkaana cusub wuxuu gacanta uu ku hayaa macluumaad badan oo dilaaga ku saabsan, balse dilaaga ma oga macluumaadka laga hayo heerka ay gaarsiisan tahay. sidoo kalena wuxuu dilaaga uu og yahay in qofka xogtaani ka haya oo uu la hadlayo in uu haysto wadooyin badan uu kusoo gaari karo. tan ugu muhiimsanna waxay tahay dilaaga inuu yaaro xogteedii oo dhan haatan gacanta uu ku hayo, wuxuuna og yahay in laacibka cusub iyada ay tahay. sidaasi awgeed wuxuu dilaagu ku dadaali doonaa inuu kasoo agdhowaado yaara si uu u ogaado qaabka sirtiisa lagu fahmay. intaasi waxaa sii dheer in dilaaga uu isku dayi doono in uu bedelo nidaamkii uu adeegsan jiray, kaasi oo haatan bannaanka yimid. markii daariq sidaasi uu ku yidhi fariid ayaa hadalkii waxaa soo kala dhex gashay yaara oo waxay tidhi, Ma waxaad kala jeedaa in dilaaga haatan sidii uu ahaa si ka daran oo usii taxadiri doono? daariq ayaa kadib wuxuu ku jawaabay, maya suurtagal ma ahan intaani ka badan inuu taxadir uu sii sameeyo, waayo haatan ayuuba khatar dhakada ka saaran yahay
oo meel uu ugu sii dhaafo ma lahan, balse wuxuu isku dayi doonaa nidaamka uu adeegsanaya inuu bedelo. Nidaamkanina waa kii isaga u suurtageliyey inuu qof xor u ahaado, gacantana lagu soo dhigi waayo. Taasi waxay ka dhigan tahay marka in dilaaga markii ugu horreysay oo mistake ama qalad uu ku dhici doono, marka uu qaladkaasi uu galana annaga oo heegan ugu jirna ayaan gacanta kusoo dhigi doonaa. Sheekadiisana halkaas ayay kusoo afmeeri doontaa. Fariid ayaa intaasi kadib hadalkii qaatay oo wuxuu yidhi, waxaan jeclaan lahaa kalabar kalsoonidan kugu jirta leh in hal mar aan helo. Aniga waxaan isleeyahay dib dambe u arki maysaan, adigana waxaad ka fikiraysaa gacan kusoo dhigistiisa. Fariid oo aan hadalkii dhammaysan ayaa waxaa Yaare ee soo gaartay fariin ka timid dhanka iyo dilaaga, taas oo ahayd fariin aad muhiim u ahayd, kana muhiimsaneed dhammaan fariimihii hore ee dilaaga uu soo qoray. Halkaa ha inoo joogto qaybta xigta ee sheekada ku saabsan dilaaga ubaxa gaduudan. Qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.